maanta marka la dib uga laabtay magaalada Caabud Waaqi waqooyiga gobolka Galgaduud wafdigii ballaarnaa ee shalay soo gaaray magaalada Caabud Waaqaasi oo hogaaminayay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdi Faarax Saacid Shirdoon iyo xubno kamid ah golihiisa wasiirada saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa ka socda AMISOM wafdigan oo ku hiday habeennimadii xalay ahayd magaalada Caabud Waaqi ayaa kulamo iyo wada tashiyo waxay la yeesheen qaybaha kala gedisan ee bulshada oo ugu horeeyaan golaha guurtida deegaanka aqoon-yahanada qaybaha haweenka dhalinyarada iyo sidoo kale dhammaanba qaybaha bulshadu ka kooban tahay kuwaas oo ilaa iyo xalay iyo saaka ay ka wada arrinsanayeen sidii magaalada loogu samayn lahaa maamul ka shaqeeya waxaana ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya uu ka dhageysanayay dhammaanba qaybaha bulshada kala gedisan oo la kulmayo aragtidooda ku aadan sida magaalada ay u macquul tahay in loo sameeyo maamul ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa intii uu joogay saaka waxa uu ku dhawaaqay maamulka koobal 9 xubnood kuwaas oo uu sheegay inay noqonayaan maamulka degmada Caabud Waaqi waxaana mar kale uu dib uga ambabaxay garoonka weyn ee magaalada Caabud Waaqi kadib markii kulan uu kula yeeshay aeroboortka gudihiisa guddiga qabanqaabada aeroboortka oo uu sameeyay xaflad sagootiisa oo ay ku ambabixinayaan ra'iisul wasaaraha isla markaana ay u soo bandhigayeen waxqabadkooda ku aadan dhismaha aeroboortka oo ay sheegeen in ay u soo mareen hawl aad u culus oo ay ku bixiyeen dhisitaanka iyo hirgelitaanka aeroboortka uu ka dhoofay maanta ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya oo ku sii jeeda magaalada Cadaado qayb kamida dadkaas ayaa garoonka dhistay ama gudaha ha ahaadeen ama dibadda ha ahaadeen waxqabadkiisii kulli waa la arkaa ilaahay baa mahadda iskala u celiyayna waxa ku xiga dadka mujtamaca oo isku darsaday maankoodii iyo maskaxdoodii iyo muruqooda isku geystay ayaa garoonkaas caalamiga noo dhisay marka ilaahay baan ku mahadinaynaa dadkii dhisayna waxaan leenahay ilaahay wax weyn ha ka siiyo intaas ka bacdi garoonkan كل وقرون عالمية وحاسكال الصوماليا يقدحيا دad gaar male dadka deegaanka ayaa dhistay oo isku tashaday waxa ka dhiman waxyaalo fara badan waxyaalahaas waxay u baahan yihiin dawladda iyo baahan tahay inay kamisho maadaama maanta waqti ugu muhiimsanaa ay joogaan waxyaalo badan baa u baahan yahay garoonkan mid garoonka waa garoon shay ah wuxuu u baahan yahay ruulo oo joogto ah wuxuu u baahan yahay diyaaradahan oo kala hadda mar ku degaan dhibaatada ay u geysanayaan waxa u diyaaratay wuxuu u baahan yahay baaladii qaadi lahayd wuxuu u baahan yahay bahashi fidin lahayd oo maartay gareedkii u baahan yahay wuxuu u baahan yahay gooyad lagu husheeyo wuxuu u baahan yahay ilaahay waa ku rooyahay ayuu diyaaradu soo dagayso garoonka baaxadiisu inta la eg tahay xoolo way iska soo gali karaan oo male waxyaalaha facing male waxyaalaha kale oo immigration-kii iyo tower-kii iyo de kulay intaanu waa intii maartay garanaysay garoonku wuxuu u baahan yahay annagu intii aan qabanay waa intii uusan ka dhoofin ka hor ayuu saxaafadda kula hadlay howlka shirarka ee airportka waxaana uu ku ammaanay guddiga airportka hawshan ay qabteen isagoo sheegay inay jiraan fursado badan oo dawladda federaalka Soomaaliya imika ay laga yaabo ay soo maraan kuwaas oo uu sheegay inay macquul tahay in kaalintooda ay ka qayb qaataan isla markaana uu ku ammaanay hawshan ay qabteen in ay tahay mid guul ay u soo hoyatay bulshada waqooyiga gobolka Galgaduud oo magaaladiina aan ugu sameeyeen magaalada kaga mahadinayna hawshan quruxda badan oo aad ka duulayno oo aad dadaalka diyaarsan aad u weyn baan kaga mahadnaqaynaa sida maanta Soomaaliya u nooshahay marka la eegana iyo waqtigan soo mareen dadku ayaga wada diyaarsadan hawlaha ka jiro kala wada rakay sida ay yihiin idinkuna nasiib wanaag waad samaysateen waad ku mahadsantihiin waxaan ku faraxsanahay maanta qaabka jiro adduunka u nooshahay dadkii wax qabsada waa wax loogu daraa fursado badan baa iska jiri kara way daahi karaan waxyaabo badan baa soo mari kara dawladda dhexe wax allaale wixii dadaalkiina lagu dhiirigelin karo iyo wixii aad xaq u leedihiin waa isugu kiindari doonaa wafdiga ra'iisul wasaaraha ayaa ku wajahan magaalada Cadaado halkaas oo looga sameeyay xaflad ballaaran oo soo dhaweeyna isla markaana ay uga saamba bixi doonaan magaalada Muqdisho markii hore ay ka soo kicitimeen Bashiir Yuusuf Nadaara TV-ga caalamiga Somali Sat waqooyiga gobolka Galgaduud magaalada Caabud